وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. السلام على رسوله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, welcome with RMC. This is the English grammar. We will record here lessons related with English grammar. If Allah say. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaalayaal, insha Allah halkani waxaan ku duubi doonaa luqadda Ingiriisiga gaar ahaan qaybaha grammarka oo aad muhiim ugu ah ardayda. waxaan rajeynaynaa inay ka faa'iideysan doonaan dhammaan ardayda Soomaaliyeed iyo ardayda kale ee adduunka markaasi. luqadda Ingiriisigu it is so common every person can learn from different sites. luqadda Ingiriisiga waxaad ka baran kartaa meelo kala duwan oo markaasi ka mid ah baraha bulshada or the internet ama internetka ka mid ah. Okay, today we will record here the lesson is related with English grammar from the beginning to the last. bilow ilaa dhamaad insha Allah waxaynu ka hadli doonaa grammarka. Grammarku mostly is a way that you can learn with other languages. waa grammarku waa hababka aad ku baran karto luqadaha shishe aad ku baran karto luqadaha shishe ayaad ku baran kartaa. weliba mostly you can learn easily, si fudud ayaad luqadda ugu baran kartaa. Okay, haddaynu iska bilaabno, this is the English grammar. macalinka idin dhigi doona insha Allah waxa weeyaan Ridwan Maxamed Cusmaan RMC ayaa idin dhigi doona. The English grammar will be beginner. wuxuu noqon doonaa mid markaasi bilow insha Allah. Idan TV channel is our channel that you can watch our lessons. Idan TV channel waa meel aad ka daawan karto casharada aan soo gelinay insha Allah. halka ayaad nagala socon doontaa. Okay, let us start. aynu iska bilaabano insha Allah luqadda Ingiriisiga. arday waxaan ogahay inaad ka faa'iidi doontaan insha Allah haddii aad markaasi nala socotaan min bilow ilaa dhammaad. Okay, programkayga waxaan ugu magac darnay Learn English Grammar with RMC. la baro markaasi grammarka RMC in order to speak this language. si aad ku hadasho luqaddan insha Allah. there will be references. waxaa jiri doona markaa references aynu ictimaadi doono ama aynu cuskan doono insha Allah. referenceskaas waxaa ka mid ah English Lab, Mastering 30 Days English Grammar, Ginger Software, Merriam-Webster Dictionary, Oxford Dictionary and others. This is the English Lab is a website. Mastering 30 Days English Grammar is a book. Ginger Software is another website. Merriam-Webster Dictionary is a dictionary. Oxford Dictionary and others. Okay, this is our teacher you see in the right hand side. Okay, halkan waxa weeyaan waxaad nagala soo xiriiri doontaan WhatsApp-kayga. halkaa lambaradaas ayaad nagu soo diri doontaan insha Allah. casharka maanta waxaynu bilaabanaa taariikhdooda waa bishii afraad 8/2020 oo bisha miilaadiga ama taariikhda miilaadiga. halkana waa bishii sagaalaad 5/1441 hijriyada bishii Ramadaan. ilaahay khayrkeega ina siiyo. This is our channel, Idan TV channel. waa channelka aad nagala socon doontaan insha Allah. Let us start. What's a grammar and why grammar is your friend? labada su'aalood ee aynu isku weydiin doono introduction-keena weeyaan aad ka hadli doono. What is a grammar? grammar muxuu yahay in English language and why grammar is your friend? why the reason a grammar is your friend? waa maxay sababta uu grammar u yahay saaxiibka? waxaynu ognahay saaxiibku inuu dadka inta faraha badan la caawiyo. why grammar is your friend? haddaba grammarku muxuu ku noqday saaxiibka? grammar first is a noun. the word grammar is a noun. there is 8 parts of speech that we will talk inshallah later. aynu ka hadli doono. grammarku haddaba waxa weeyaan 8 qaybood noun ayuu ka noqonayaa. grammarku waxaa lagu sheegi karaa the structure and system of a language. waa structure waa qaab dhismeedka system iyo nidaamka of a language ay luqadu taal or of language ama luqadu inay general si guud. usually caadiyan ba considered waxa loo tixgeliyaa to consist of inuu ka kooban syntax and morphology. these are 2 parts of a grammar or components. halkan waa qaybo ama components u leeyahay grammarku, syntax and morphology.
maxay yihiin xagga dambe ayaynu aad uga hadli doonaa laakiin syntax it relates with the arrangement of words or phrases into a good or to make proper sentence wuxuu la xiriiraa markaasi isticmaalka ereyada iyo phraseska si looga sameeyo sentence wanaagsan markaasi this is the morphology it relates with the words wuxuu la xiriiraa ereyada formation of the words origination of the words originally where they come from it relates with the different forms of the words wuxuu la xiriiraa qaababka ereyada okay if we let us go haddii aynu markaasi kusii socono grammar is the system of a language waa nidaamka luuqada leedahay this is the skeleton of a language waa skeletonka ay luuqada leedahay ee ay ku dul dhismaan qaybaha kale ee luuqadu ayaynu odhanaynaa people sometimes describe dadka iyaga qaarkood waxa ay ku qeexaanba grammar inuu grammarku yahay as the rules xeerarka of a language ay luuqada leedahay but in fact no language has a rules luuqadi ma laha markaasi rules maxaa ka wadnaa haddaba ma laha if we use haddaynu adeegsano the word ereyga rules we suggest waxaynu tilmaamaynaa amaynu soo jeedinaynaa that somebody creative inuu qofi xeerashan inuu sameeyey waayo that in somebody qofi creative uu abuuray the rules first ugu horreyn uu abuuray xeerashan and then spoke the language kadibna uu ku hadlay luuqada tanna sax maaha waa markaasi waxaa profeba waxay tiraahdaa markaasi the language is spoken before writing and reading luuqada waxaa lagu hadli jiray inta aan markaasi lana qorin lana akhrin ayaa lagu hadli jiray that means rules come later xeerashu waxay yimaadeen goor dambe ayay yimaadeen xeerashu goor dambe ayay imanayaan markaa uu ka horreeyay dee markaasi ayaynu odhananaa sidaa ogeed it becomes like a new game waxaa iska noqonaysaa sidii ciyaar cusub but language luuqaduhu did not start like that sidaa kuma bilaabmaan language is started by people luuqada waxaa bilaabada making sounds iyagoo codad samaynaya which evolved into words kaasoo markaasi u gudba evolved kaasoo u develop garoobay into words ereyo phrases waaye ereyo markaasi waaweka waxaa la yidhahdo sentences waa weedho caadiya no commonly spoken language is fixed luuqada caanka ama no commonly spoken language luuqad lagu hadlo si guud loogu hadlaa is fixed ma jirto markaasi mid ah fixed waa meesha ku xadidan ma jirto all languages change over time all language dhammaan luuqaduhu change way isbedelaan over time muddo kadib what we call waxaynu yeelanakaa grammar baynu yeeli grammar haddaba is simply a reflection of a language at a particular time this is the reflection waxa weeyaan markaasi waa waxa markaasi kula jaan qaadaya of a language ee luuqada ay leedahay at a particular time waqti gaara this is the reflection iskaatusta ayaa leedahay waa shayga waayo grammar mostly it talks about the direction that you are going to waxa uu ka hadli doonaa jihada aad u soconayso ayuu ka hadli doonaa okay do we need to study grammar to learn a language miyaynu u baahannahay grammarka inaynu baranno si aynu u baranno luuqadda the short answer is no luuqadeenna markaynu taagannahay jawaabta gaabani waxa weeyaan waa no very many people in the world speak their own native language without having studied its grammar very many people dad fara badan in the world dunidii speak way ku hadlaan their own nafahantoodii khaasatan bay ugu hadlaan native language way luuqadaha markaasi qofku uu ku caanka yahay uu yaqaano markaas uu dhashay without having isaga oo aan markaasi studied baranin its grammarkiisa children caruurtu start way bilaabaan to speak inay hadlaan before they even know the word grammar xataa ku hor intayna baranin bay ereyga grammar ayaa waxay sameeyaan speaking that means language is spoken before or English language is spoken before writing and reading but if you are serious about learning lakin haddii aad u hami qabto about learning inaad barato a foreign language luuqad shisheeye the long answer jawaabta markaasi dhaariyadu waxay noqonaysaa is yes ayay noqonaysaa way ha waad u baahan tahay inaad ingiriisiga barato grammarka
grammar can help you grammar waxa uu ka caawinayaa to learn a language inaad u barato luqadda more quickly si fudud and more efficiently iyo si wax ku oola it is important waa muhiim to think inaad ka fikirto fi grammar ka uga fikirtaa as something shay that can help you ku caawin kara like a friend sida saaxiib oo kale like a friend when you understood markaad fahamto the grammar or the system ama nidaamka of language luqada u taalo you can understand waxaad fahmi kartaa many things shayya fara badan yourself khaas nafahantaada without having to ask adigu aan weydiinaa teacher macallin or looking at a book ama keegi wax buugaba because you know English grammar waxaad taqaanaa markaas grammarkii and grammar can help you to identify the way that you want it well grammar wuxuu ka caawinaya jidka aad doonayso inaad u marto luqadani ayuu ka caawinaya that means it is your friend waa saaxiibka so think of a grammar uga fikir grammarkaas as something good shay aad ku wanaagsan something positive direction ku kaxaynaya something that you can use to find your way shay aad markaas ku ogaan karto jidkaaga like a signpost or a map waxaynu ognahay markaas signpost ama mapku inuu ku tusinayo markaasi dhinaca waad u socoto iyo meesha aad doonayso for example mapka haddaynu soo qaadano mostly if you wanted to fly a country haddii aad rabto inaad waddan u duusho first you have to take the map marka hore waa inaad maapka soo qaadato and you have to understand the location of that country waa inaad fahamto markaasi meesha uu ku yaallo waddankaasi as well as the distance between that country and your country iyo fogaanta u dhaxayso waddankaasi different cultures of that country culture-ka waddankaa laga isticmaalo ama culture-ada kala duwan ee laga adeegsado waddankaasi waa inaad taqaanaa isagana insha allah okay if we continue haddii aan soo wadno insha allah this is the more offer halkani waxa weeyaan qaybo kale oo dheeraada more offer waa qaybo kale oo dheeraada aynu kaga sii hadli doono grammarka grammar is the way we arrange grammarku waxa weeyaan qaabka aynu habayno weedhi sarayada to make saan la samayno proper sentence markaasi saxa word level grammar and sentence level grammar is a two parts that we can talk about in a grammar waa laba qaybood aan kaga hadli karno grammarka this is a different levels of grammar waa levels kala duwan oo ah dhanka grammarka haddaba grammarku is the way is the system is the process we arrange words aynu iskugu habeynay ereyada we match words to make proper sentence so sentence saxa word level grammar ka qaybta loo yaqaano complex verbs wuxuu ka hadlaa ficilada tenses waa yahay wuxuu ka hadlaa dhacdooyinka nouns magacaanta adverbs falkaabka etc iyo wixii lamid ah sentence level grammar complex phrases wuxuu isagu inta fara badan ka hadlaa word way ka clauses waa jumlaha waxa la reported speech waxa weeyaan isaguna qaybo ka mid ah sentence level grammar this is our lessons today halkaas ayaynu insha Allah ku degi doonaa casharkeena maanta insha Allah arday waxaan rajaynayaa inaad si fiican qaybta ugu soo bogan doontaan we will start the next part if Allah say thank you very much goodbye